هي maanta waxaan halkan ugu hayaa heestan reaction ka soo bixiyay sidoo kale iyo wararkeena sportska ayaan halkan ka marnayn balinal daawada heestii dislike iyo wararkeena sportiga heestan ayaan u bixin doonaa heestii dislike waa heestii labaad ee dislike hadaba daawasho waxaan leeyahay wayna bilaabmaysaa heesta ayaan ku soo horeynayso sheeko cusub iyo waayaha cusub iyo reaction cusub oo inoo soo diyaariyay haye isla anigii Aweys Xuseen Usmaan la socod waxaad igu bararteen wararkeena sportska soo kale halkan maanta waxaan igu hayaa waayaha cusub hees cusub soo qaaday heestan ayaa ah heestii labaad ee kaalinta labaadna ka gashay qaybta dislike ee waayaha cusub heesa ay soo qaadaan bal maxaa halkan ka dhici doona ila daawada iyadoo baraha bulshada loogu hadalhaynta badan yahay heesta labaad ee dislike ay heestan ayaan oran doonaa heestii labaad ee dislike haddaba waayaha cusub iyo idin kala baxo barta commentiga inoogu reeba bal waayaha cusub iyo xaalkooda halka uu marayo waayaa cusub oo waa cusub u bariyay alla ilaahay waayaa cusub wacdara ayaa heesta maalmahan barta YouTube-ka ee Soomaalidu ku wada kulmaan waayaa cusub maxaa kala heesta iyo dislike iyo sanadadan bal kala daawada heestan iyo wacdaraheeda waayaha cusub ayaa waa cusub u bariyay iyagoo Soomaalidu ay mar walba hees walba ay soo saaraan dislike ee u saaraan alla ilaahay waayaha cusub heestooda jacayl ama ahaato ama nacayb ha ahaato dislike ayay mudan tahay leeyin Soomaalida bal inala daawada inta kale waxay leedahay haye goori raacaha noqon bal waxay ka hadlaysaa heestii hore kuwii dislike soo saaray aniga iyo fikirkeyga bal yaa igu raacsan inay sida la jeedo heesta bal hayay waayaa cusub iyo waa cusub bal waxa kala dhaqabsaday baraha bulshada waxay u shidan tahay kooxda waayaha cusub iyo barta YouTube-ka ay ku wada kulmaan Soomaalida ayaa heesaha ay soo qaadaan waayaha cusub heesahan ay waayaha cusub soo qaadan ayaa noqotay heesaha YouTuberada ugu waaweyn ay ka soo hadlaan sidoo kale ay kamid yihiin YouTuberadaas Arimeena iyo CK soo kale wali waxaan ka soo hadlin heesta Drisla Cabdi iyadoo ay sugayno Drisla Cabdi reaction ka sidoo uga soo bixin doono waayaha cusub alay waayaha cusub ay u shidan tahay barta YouTube-ka ay Soomaalida ku wada kulmaan sidoo kale waxaan leenahay waa heestii labaad ee dislike intaas aan kaga bixinaa heestii waayaha cusub haddii aan intaas aan kaga gudubno heestii waayaha cusub ay soo qaadeen imikii haatan waxaan u gudbaynaa haye wararkii sportska iyo soo diyaarintii isla anigii Aweys Xuseen Usmaan la socod wacan haddii aan guda galno wararkeena sportska hadaba waxaan leeyahay wararkeena sportska waxaad nagala socotaa barteena YouTube-kan ugu magac darnay Aweys Bro hadaba intaas waxay ahayd reaction aan ka bixinayna heestii waayaha cusub imikii haatan waxaan u gudbaynaa wararkeena sportska hadaba la socod wacan ayaan leeyahay kooxdeena ee baraha bulshada haddii aan ku horeyno wararkeena sportska kooxda Chelsea ayaa la kulmi doonta dhigeeda kooxda Manchester City ciyaartaas ayaa ciyaarta ugu weyn ee horyaalka Premier League kulanka caawa ayaa dhexmari doona labada kooxood kooxda Manchester City kooxda Chelsea asaatay saacada goorsheegto markay ay tahay 8 fiidnimo ee geeska Afrika ayaa lagu balansan yahay ciyaartaas inay wada kulmaan kulanka caawa ayaa ka maqnaan doona Kun Aguero isagoo kulankii hore ku soo dhaawacmay sidoo kale kooxda Manchester City may ka badin doontaa dhigeeda kooxda Chelsea iyadoo lagu ciyaaray garoonka weyn ee Chelsea
sidoo kale kulan adag ayaa dhexmaray kooxda Crystal Palace kooxda Liverpool ciyaartaas ayaa ku soo ilaatay 4-1 iyadoo lagu durduriyay kooxda Crystal Palace. Sadio Mane iyo Mohamed Salah ayaa ku maadeystay kulankii xalay toole kooxda Crystal Palace iyadoo goolasha kale ay kala dhaliyeen Firmino iyo Andreo. ciyaartaas ayaa ku soo ilaatay 4-1. sidoo kale kulan adag ayaa dhexmaray kooxda Real Mallorca iyo kooxda Real Madrid kulankaas ayaa ku soo ilaatay 2-0. ciyaartaas ayaa ciyaar ay hoggaanku kala wareegaysay kooxda Real Madrid. sidoo kale kooxda Barcelona ayaa la kulantay habeen hore ciyaartii ay wada ciyaareen kooxda Atletico Bilbao. ciyaartaas ayaa ku soo ilaatay 1-1. kooxda Barcelona ayaa guusha si gaartay. sidoo kale koobkaasi La Liga dalka Spain ayaa labada kooxood ay ku wada hirtamayaan kooxda Barcelona iyo kooxda Real Madrid. waqti xaadirkan la taagan yahay ayaa koobasha ugu adag ee La Liga dalkaasi Spain. kooxda Real Madrid ayaa soo hogaaminaysa kaalinta labaadna ayaa ku jirta kooxda Barcelona. ayayse kula tahay fikirkaaga ka dhiibo barta commentiga inoogu reeb fikirkaaga labada kooxood kooxdii ku guuleysan doonto koobkaasi.